وبركاته سلام كدب وحن تهنيد إيه همبلي عمرنا يا هود أمة الصومالية ملك السيجوجان سنة جوردي تطبيق كونتنات إيه كسر ورقتي مركي صوماليا جواني ماذا إيه كقاعدتي صوماليا إسرع عبي سيد أبونا أكسن إيه أنكو حسكرنا أو ياشيني أما جيسياشي صوماليات أيا وحيتها إن أن هيكسنو أتكينو وجدوين كودي أو أها كنا صليسنا صوماليا أو مديسن صوماليا أو حرة iyo Soomaaliya oo israacday oo ugu dambeyntii la tartami karta asaageeda iyadoo sharaf iyo karaamo caalamka kula tartamayso waxaan ugu dambeyntii leeyahay waxaan u mahad celinayaa mahad gaar ah u jeedinayaa ciidamada qalabka sida oo har iyo habeen noo taagan waxaana maanta aaminsanahay halyeeyada maanta inoo jooga waa saddex oo ay ugu horeeyaan ciidamada qalabka sida oo naftooda inoo hura oo ay ku xigaan dhalinyarada Soomaaliyeed oo ayagana halyeeyada maanta inoo jooga ah iyo sidoo kale ugu dambeyntii halyeeyada oo har iyo habeen garab taagan duruuf adag iyo mid wanaagsan waa haweenka Soomaaliyeed ama gabdhaha Soomaaliyeed ayagana waa halyeeyga maanta iyo halyeeyga bari waxaan ugu dambeyntii rabaa inaan iraahdo hambalyo 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 Bismillahir Rahim mudane gudoomiye golaha wasiirada oo munaasabadan quruxda badan soo qaban qaabiyay oo ah xuskii 57 guuradii ka soo wareegtay markii aan xornimada qaadanay iyo markii ay ummadda Soomaaliyeed ee midowday waxaan leeyahay kulligiin dadka halkan ka soo qayb galay hambalyo 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 maanta waa maalin weyn oo taariikhi ah oo ummadda Soomaaliyeed ay gaartay إن لا ترتنتو عالم أنت هذا كله وإن كل ترتنتو midnimo waa 10 wanaagsan oo laga barto waana ka baranay 10 kaas in kasto meel dhexe waxaan uga halaabeen waxaan taaganahay maalintii aan qaadanay xornimadan taaganahay waxaan ku jirnaa halgan oo aan doonayno ummadda Soomaaliyeed inaan mideyno qof walba oo Soomaaliyeedna ay ka saaran tahay mas'uuliyad ayna tahay inaan wada istaagno kulligeen sidaan mar walba uga wada hadalno inay tahay koow in magaaladan aan mideyno horta dadka jooga magaaladan ee 3 milyan ah inay noqdaan qof walba inuu waajibaadkiisa guto oo qof walba walaalkiisa uu la shaqeeyo uu kala shaqeeyo wanaag dawladana la shaqeysaan waxa la wixii wax u dhimaaya dawladnimada iyo horumarka Soomaaliyeed isku meel lagu wada istaago oo aan uga wada hormaarno waxaan ognahay maanta Soomaali meesha adduunka ka taaganta iyo magac xumadan haysa waxaan uga gudbi karnaa oo kaliya in aan ka shaqeyno wada jir inaan ka shaqeyno midnimo in magacii naga halaabay ee muddo naga haleysnaa inaan dib u soo celino walaalayaal waxa ugu horeeya oo aan mar walba ka hadlaynaa waxay tahay dawlad iyo maxaan ku raahdaa nidaam waa waxa adduunka uu ku kala hormaray weey waxaana koow ka ah oo aan ka hadlaynaa maalin walba ammaanka iyo nabadgelyada iyo in la dhowro nidaamka iyo in loo hoggaansanaado sharciga walaalayaal waxaa noo yaalla hawl culus hawshii hore oo aan soo gudubnay
وحوي وحبان كبرني وحبان نجاه الله بوان نقارنا وحين نجاه الله بين وان نقارنا وحلو بعيا هذا إن أن كجذبنه أن أجذبنه أو أن كتجنه كو وحي قبيلة يوحي قيب سنانا كتجنه أو أن أجذبنه من نمو يوم الجر ما أنت هو مال تاريخية إله وحن كرجينا سنة كصوص عذا أنه سيدا كون أكسن وحن رجينا ومدى الصومالي وسيدا سيدو وحن رجينا مقالة نبضة وحن رجينا صومالي أو ميودة أو وذا جرته وحن كسو قوينا هذا الكيجا وحن وضع شيخنا مالي والبابا إن dadka loo baahan yahay dalka inay mideeyaan oo u shaqeeyaan waa xoogga dhalinyarada Soomaaliyeed dhalinyaro waxaan leenahay dalkan waxaan soo gaarsiiyay midnimada iyo sharafka ay leedahay dhalinyarada inkoo kala ah maanta waxaa la idinkaga fadhiyaa inaad ka shaqeysaan midnimada inaad u shaqeysaan dalkiina inaad u halgantaan sidii nabadgelyo iyo ammaan ugu soo celin lahaa inaan la wada dagaalno wax alla Soomaaliya nabad xumadu keenaya ay ugu horeeyaan qolada nabadiidka ah oo xaq jirka ah waxaynu kula dagaalamayaan magacooda waa naqaanaa waa dhalinyaro waxaan uga hortageynaa aan uga adkaanaynaa wadannimo iyo Soomaalinimo yaan uga adkaanaynaa qabiil ugama adkaan karno way ka tageen iyagu qabiil waxay u gudbeen wax caalamka oo dhan ay ku taageerayaan caalamka xaq jirka ay ku taageerayaan waxaan kula dagaali karnaa ama aan uga hortagi karnaa mabda patriotism la yiraahdo mabda wadani la yiraahdo yaan uga hortagi karnaa qabiil loogama hortagi karo waxaa la idinkaga fadhiyaa dhalinyaro in aad noqotaan dad wadaniyiin ah inaad noqotaan dad patriotic ah oo dalkiina iyo dadkiina u dhinta annaguna aan hormood idinku noqono ama horseed idinku noqono sidaan idinku hogaamin lahayn dawlad wanaagsan dawlad sharci ku dhisan annaguna waxaan ku hogaaminaynaa nidaam iyo sharci iyo cadaalad yaan ku hogaaminaynaa gabdhaha Soomaaliyeed oo waligood ahaa laf dhabarka dalkan iyo dadkiisa idinkana waxaan idinkaga fadhiyaa sidii hooyooyinkiin iyo ayeeyooyinkiin ay u soo halgameen dalkaani inuu noqdo xor dalkaani inuu la tartamo caalamka intiisa kale inaad gabdhaha Soomaaliyeed gabdhuhu inay u istaagaan inay dalkan iyo dawladdiisa garab u noqdaan oo ay gacan siiyaan oo ay la shaqeeyaan walaalayaal hadal wax ma taro intaas waa la hadlayay markaan waxaa la rabaa hawl in la qabto waxaa la doonayaa inaan shaqeyno inaan shaqadaas aan hayno aan ummaddeena ku gaarsiino horumar inaan ku gaarsiino waa mahadsantihiin Soomaali ha noolaato waxaan leeyahay hambaliyo sanadkiisa kalena inaan ku gaarno caafimaad iyo horumar badan waa mahadsantihiin Allah
malo bahsan nololku baaqay waa baayadooda kuwii ka baydheen magaca lahege boqorka gooyay waa baabkooda